Asia iyo Mareykan iyo Aasiya isku maray Afrikana meelo badan laga sheegay khaliijka laga sheegay ugu dambeyn Kenya laga sheegay Ethiopia hadda waxaa la leeyahay Soomaaliya ka istaaga dhalinyaro oo karantaan ku jira oo karantiin baa barinta faraha badan dadku waxay leeyahay oo arrintan laga sameeyo waxaan dadka uga digayaa inaan baqrintu aysan xal ma wixii la qaban karo inuu qabtaada waa ilaahay la tawakkal حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل waxyaalaha haatan leeyahay hal isku nadiifiyo gacmaha hal la mariyo wasanka hal u haysto magaalada waa yaaleen haddana waxay u soo tuulaysaa waxyaalo joogay $5 ilaa qaarkood inay siinayaan oo dilba 7 jeer baraaska kor u qaadeen marka haddii dadkii ganacsanayay dadkii markay shaqadeen xaruun ay ka cararayaan haddii qiimihii dawajitaah laga dhigo macnaheedu wuxuu noqonayaa qofkaasi wuxuu ku sifoobayaa sida wax u gadanayaa qofka wuxuu ku sifoobayaa qof dadka daryeelkooda ka jecel shilinka isagu u hela wuxuu ilaawayaa qofkaasi xanuunka isagooda ku dhici karo dadka ka bilaabi karo oo sicidi u gudbinba baaba dhici kartaba waxaa leeyahay marka dadka noocaas oo ka ganacsanaya khataraha waddanka yaala coronavirus ka ganacsadaan macquul maaha ummaduna waa in indha gaara ku fiirisa dadka noocaas oo baasha gacanta la marsanayo $2 ahayd iyo sanka ugu xiranayo $5 ahayd $5 dadku indha gaara waa inay u yeeshaan inay xilligii dhibaatadu ay ugu adkeed oo la baqayay inay rabaan inay lacag sameeyaan oo noolaadaan waxyaabaha dadka Soomaalida ay ku hargabayeen ay dadnimadooda Soomaalida ku liidato waxa weeyaan tan oo kala ka mid in dadku aqbalo wixii sharci siisanaya shilinka inay siistaan boqoshii dadka waxaa ka wacyigelin dadka noocaas iyo waxay taraan laati haysata aynu aragno ama gacan la marsado ama iisa la marsado mariya jarta mariyahan maaragtay faatiga jarta suuqaadu ka samaysan jirtay waayo kelimada ay kala jirtay baadki asanka lagu xiranaya mara baadki asanka lagu xiranaya waa faxri lama sameeyo mariyaha samaysta saabuna kama marsado wax kuwaas ay leeyihiin yaan la gadan waa xaraan weey sidii wax u gadan xaraan weey marka tiktoor maradu wax ma celin kartaa markaas hadii la xirto of course hal celowey baasha unta warqad afay celinaysa celinaysa waxaa ka xun waxaan kuwa kala galan karin inta manka qofka waxa galan kartaa isku xirtaa ka xun waxaa ka dhaxeeya wanaagla waana samaysan kara wanaagla intaan u gacan dadaas shaqonay ilaha ka yaabay ummadana ka yaabay sidii taana joogay coronavirus ku shilin baa sidina oranaya dadkaas ilaha baa noo dhexeeya anaga iyaga dadka iyaga ilaha baa u dhexeeya waxaad yeelaysaa biyaan waxba laga gadan dadka waxaan leeyahay waxba yaa laga gadan waxaa la sheegayaa waa u nadaafadda guryaheena ku samaysanan mariyina baartiga sanka ku xirta dadkaas ka dhigay qaaliyeeyey sida raashinkii ganacsatada marka abaaro u dhacaan markii balfadanka dhacaan ay yeeli jireen bay ku dayaan waxaan leeyahay yaa laga gadan ilaha la tuwakalo qofkii ay ku dhacaysa uga arki maysaan aniga halaas ay wataan uga arki maysa uga arki marka tiktoor baqa ugu dambeeyay marka muxuu noqonayaa ilaashada ha u gacan gelinina dadka shaqoonayo oo dadkoodu yahay inuu noloshooda iyo iimaankoodu shilan yahay ha u gacan gelinina saabuun iyo baatiga nasbaa ma rabay inaan ku daro in yar baa rabay inaan ku daro intaas oo dhanka shariicada islaamka yani haddii hadda gaabsha dhacdo ganacsatadu haddii wixii yaraadaan haddii ganacsatadu xor ay u tahay inay cuntada la cunaya daruuriga ahayd intay rabtaa ka dhigto haatan arrintu inkastoo aysan ilaali lahayn inooma keena arrin caafimaad ay tahay oo geeriya nolol ay tahay oo geeridii noloshii la kala iibsanayo oo haddii lagu kala iibsanayo qiimaheeda hore originaalka macno weeye ama hataa laga raqiisinayo laakiin waxaan culimada weydiinayaa ma bannaan tahay in sidaas qofka ganacsanaya uu yeelo ama dawadii uu yeelo
ama xaalado khatar oo sidaa oo kale markay jiraan inuu yeelo haddii aysan la jirinna dowlad wax ka qabanaysa aysan jirinin culimada waxaan weydiinaya maxaa dadka u bannaan inay sameeyaan yani masalan ma bannaan tahay dadkaas in la boobo waxa ay saas u yeelayaan in la boobo dadku boobo ma bannaan tahay baan culimada weydiinaya raalligaa laga ahaa baaqaaga ugu dambeeya muxuu noqonayaa tisoore baqa ugu dambeeya waxa weye bismi illaahi raxmaani raxiim ilaahu coronavirus nokeen ilaahu coronavirus nokeen uma tabar hayn ilaahu tabar uma hayn ilaahu waa noo jeedaa ilaahu waa nokeen waxaan ku labaynaya waxaa ka gadanina kuwa noocaasa afarta qof wax gadan kartaa oo ku yaacaysa dhibaato unbay dooranayaan khayr iyo xal dooran mahayaan madiina baatiga jarta dadka ku haysta dumarkuna uma baahnaba xijaabkiida qabaan niqaabkiida qabaan dumarka uma baahna baaqi ugu dambeeya waxa weeyaan dadka noocaasa yaan waxba laga gadan baatigeeda xirta intii oranaya insha allah ilahna barya